aniga ismalihii amniga Soomaaliya ayaa wax weyn iska bedelaya. In fact waxaan aaminsanahay hadda si oo aan ku talagal ahayn ayay qayb waxay uga yihiin amniga guud ee Soomaaliya. ayaga waxay qayb ka yihiin si aan ku talagal ahayn ayay amniga guud ee Soomaaliya qayb ka yihiin. waxay uga ahaanayaan maadaama ay yihiin awood aaminsan waxa loo yaqaan monopoly of violence, dhulalka ay ka taliyaan inay iyaga kaliya awoodda jirta yihiin. waxay ka jirta nabad relative ah oo xataa qabaa'ilkii iyo reerihii isdili jiray under al-shabaab iskuma dilaan. haddaad u fiiriso qabaa'ilka isdila majority-geeda, overwhelming majority, waxay isku dilaan dhulalka ay maamulada aan shabaabka ahayn ay ka taliyaan, including dhulalka Soomaalidu degto oo dalalka dariska xataa. marka dhinac fiican leeyahay saas waa si aan ku talagal ahayn qayb waxay guuday waxay uga yihiin aan ku yiri amniga guud, because waa qolada kaliya oo makanisay in ay maaragtay amniga uu gacantooda ku jiro. midaas waa mid hadda obvious ka jira, laakiin markii ay baxaan maxaa dhalan kara marka? dabcan waxaa booskeeda buuxin kara qolyo kaleeto oo iyaguna aruursan oo maaragtay dawladda, maadaama hadda dawladda ducfigeeda, ani waxaan aaminsanahay boqolkiiba 90 shabaab jiritaankiisa waa dawladda ducfigeeda. dawladda haddii xoogaysato, dawladda xoogaysi kama wado midii qoriga iyo taangiga. dawladnimada iyo legitimacy-ga dawladnimada haddii ay xoogaysato, space uu tuug iyo qolo is-abaabushay ay galaan ma jirto. marka gaabska annaga waxa loo baahan yahay waxay tahay in aan annaga yani dawladnimada hagaajino. dawladnimada markay hagaagto oo wax walba oo yani qofka Soomaaliga uu u baahan yahay oo security-ga, not only the physical security-ga ma, any other security oo ah maaragtay welfare-kiisa iyo wixii lamida, haddii dawladnimadu ay buuxin karto dalalka dunida ay dawladnimadu fadhiso oo welfare-ka oo bini aadanka meeshaas ku nool aad looga shaqeeyo oo safe and secure ah, yani burcad iyo tuugo iyo argagixisyo kama dhalan karto. dalalka burcad iyo tuugo iyo argagixiso ay ka dhalato waxay tahay meel ay dawlad xumadu ay ku bulaashay. example